dadku siyaasiyan inay hadli karaan siyaasadda saxal telefishka ka haysta wiilkaaga shaqada laga soo eriya oo hooyadan xalay xafladaasay ka qayb gashay maxaan ku iraahdaa waxaa laga eriyaa gabadheeda muxuu ahaay ciidamada booliisku ku jirta laga soo eriya ama militarigeeda laga soo eriya agaasimahani nikaax nin hebel oo mucaarada gabadhiisoo loo nikaaxsanay oo ka qayb galay biri shaqada waa laga eriyaa waxaasi waa ka barya wixii la dhihi jiray waa waxaasi waa lagu soo noogay horaa loogu soo noogay waddo sax ma ka joogaan leenahay dowladda maxaan ka rabnaa marka dowladda hal midaan ka rabnaa dowladda qaanuunka inay ku dhaqantaan rabnaa bes dadka Soomaaliyeedna waa ku dhiirigelinaynaa waxaan qaanuun ahayn inay iska diidaan waxaan qaanuun ahayn maya inay dhahaan iska diidaan waa ku dhiirigelinaynaa annagaana bannaanka la taagan waxaan qaanuun ahayn waa la diidaa ama dastuur aan ahayn ama sharciyada aan waafaqsanin qad gaduudan walla gaduudan oo khatar oon laga tallaabi karin waaye korosiimo hay-adaha dastuuriga ma aha baaqaas madaxweynaha fariintaas madaxweynaha bas kuma socoto madaxda kale ee hay-adaha dastuuriga laftooda yaanay ku fakerin xanta fulay xantiis ma boogaa la yidhi beledka xanta taalla xantoodana waa og yihiin hay-ad wakhtigeedii la dhaafinaayo ma jirto waa la dooranaa hadda wakhtigu yaanu ka dhicine kaambeynkii kuraastooda sidii loo dooro lahay hadda ha ka sii shaqeeyaan ha bilaabaan mid kale hala keeno dowladnimada waaye aragnimo waaye hana la warsado